إلهو عادلو عرشك السمادية أرلدا عسيس كابورتيو عد كان دوني نيو عزق اللي بنت بالنسي الله عرضدي هالجمي الله جسيدي عرتمي هيانك عرابيين حرني ما لقوا البحيو عزي شرف لقوا هلا عدود لقوا مال مرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داوديال ملو البوا جوكتان كنسو هذا channel كا جرشدا سريسا مرو البو جرشدو هسريسو أبوان بشير يعني مرور بالديار كبعنتا جراتك للينت الصوماليات وحرمنا مانتينا تعسي تيرايله هلكن أنا قدر إنه جودها بالشدة الصوماليات جيريدي نحدين تلاهيد مانتا عدوجا أي كدلين تليه عيدا كبوليس الصوماليات قبل كبنادر فرح قرولة إن الله إليه راجعون حالنا إنا لله وإنا إليه راجعون runtii aniga iyo abwaanka waxaan uga tacsiyeynaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo eheladii qaraabadii uu ka baxay soo dhawaad Bashir aad baad mahadsantahay korontan waan dhawahay sidoo kale aad baan uga tacsiyeynayaa geerida xanuun kale ee ku timid taliye Farxaan Qarwale ummadda Soomaaliyeed oo dhan dad kale geeribu ku xukumaya haddana inaga Soomaaliyeed waxaan dheerahay waxaan ku xukumanahay geeridu waa kala laba dil inuu ku wada xukumanaa ummadda Soomaaliyeed baan fariin meeshan hawada uga maray markaan ka imaado tacsida waxaan leeyahay taliyaha Ilaahay ummadii iyo ehelkii qaraabadii uu ka tagay ummadda Soomaaliyeed si mariimaana ka siiyo isagana Ilaahay xaqiisa soo dhaweyn ma uga rajaynaynaa inta kadib kulligeen baa jil ku xukuman Soomaaliya oo dhan baa jil ku xukuman waa sax abwaane waxa jiro howlgalka ka dhana al-shabaab ayaa maalmahan bisocday runtii qaraxa taliyaha wuxuu ku soo aaday xilli kacdoon shacab uu ka dilaacay guud ahaan gobolada dalka isla markaana muxuu ahaa deegaano fara badan laga saaray oo laga xoreeyay kacdoonka shacabka balka hor aad baad mahadsantahay koronto waxa weeye kacdoon korto waa kan suugaynay inta weynay waxa weeye dadkan hadii dibku ku bato marka u dambaysa isaga kici ma aha al-shabaab kaliya cadow walba oo Soomaali ay lahayd faruhu kula jira maanta qaybo ma garanaysaa si qaab daran oo xaq darra lagu haysto oo maga gumaysi fool xun oo kolba wajiye yeelanaya uu ka jiro qaybo ururo gooni oo kuwan hadda aad ka sheekeynay sida ay ku shaqeystaan sidaas daraadeed baraarugan maanta uu kacay dadka Soomaaliyeed aad i farxad galiyay uu ku kacay uu ku baraarugay maanta cadowgiisa meel kasta uu joogo ku qori kula dirra iyo ku qalin kula dirra iyo ku siyaasad kula dirraba Soomaalidana ay diyaar tahay maanta sharafteeda inay soo ceshato arintaas waxa igu xambaartay maanta inaan dadka Soomaaliyeed rajo galiyo gabay rajo gelinaya oo saan qirayo ama rajaynayo dhalinyaradu in badan ay u baahnaan doonto in loo fasiro laakiin dadka fahmi doona dadka garaashada oo saaxiib kale inta badan ay yihiin yaan rabaa meeshan inaan uga soo gudbiyo dadka Soomaaliyeed oo dhan adduunyadan caabuq iyo fisqigu camalka u noqdeen wixii shalay ceebaha dunida maanta caadi yahay adduunkan ciqaabta iyo colaadaha lagu dhaxshaday saynis yahanadu cilmiga adduunyadan ay cursheen waa horumarka dunidu gaadhay saynis yahanadu cilmiga adduunyadan ay cursheen hubka culus iyo dunida nuclearka lagu cabiray adduunyadan qalab casri ah cadceedi loo dhigay kulkeedii lagu cabiray kuwii caynka falayo inta badan waxa hogaamiyay ilbaxnimada dad Ilaahay ka furtay kuwii caynka falayo cilmiga in kastoo ay barteen casiiska sahal uga dhigay hayeeshee caasiyadu cilmiga taa kuma hayaan carradii waan dhaafnoo cirkaan degnay bay dhaheen hadda cirkay badaan dansanayaanba sax carradii oo ilayeen waxaan u diray carradii waan dhaafnoo cirkaan degnay bay dhaheen rabbina dhaar buu cuskaday cadaabkeena ku guri balan cabiron markay tilmaanta carraabiye ciidaniya waayo hore carrada jiilaaladiyo culayska abaarihi dhamaanteed lagu camiray cudadii 7 ahayd dalkeenu xilliyo badan buu isku day kacdo gobonimo awr 7 markii la isku dayay in gobolka laga xoreeyay Itoobiya oo kale cudadii 7 ahayd hanfiga ciiryaamihiyo ciirida kulaylihiyo kolkay caatadu badnayd kolkay baahidu cuslayd ayrkii mayga isxiray samada guudkeeda camiray argaagtamay unkaday barwaaqiya caana iyo ciiduhu roob weyn fisheen suux iyo cadar buu noqdo ma soo rogin daadad culus cagaar iyo doog ma bixin nugusho ay ku cayilaan caashacad wax bixisay caashacad waxa leedahay geedka dhafaruurta gabar caasha la dhaho cad yaa loo malayn geedka dhafaruurta la dhaha waxa dhafaruurta la yiraahdaa geed mira ah oo dhafaruur la yiraahdo bixis caashacad wax bixisay iyo mareer geedaha camira cilalkiyo doombirtiyo ciidkii hoobtii ma bixin cilmiga falaga kii akhriyay haduu cirka fiirin jiray ximr rufaalkii cuskaday ximr waxa leedahay xidiga dhiig iyo colaadaha حمر رفالك عسكري ساداش عردورت إيو رتشدي بعاردو عكرم بينجو أهيد
waxay cadibnaatooy cirkaa ku shareerantaba hadday saadaal cuntami barwaaqiya nabad camiran ciziyo sharaf muuqataa cirsanka yeerkiina xalay kolkuu codka dheer ku ciyey saadaashii uu cabiray caaniyo roob bay ahayd cakirantii baa la jaray caqabad baa laga dhex baxay caqligii baa lagu fakeray wixii ciidda lagu qarshiyo caddaatay siyaasadii culayskii baa ku degay yani waa laisku fahmay wax kastoo la isugu gabanayay ha ee ilaahu caadilow carshiga samada iyo arlada casiiska abuurtayo cadkaan doonayna iyo ciziga libintaba nasiib allow curadadii halgamay allow geesiyadii cartamay hayaankii caraabiyeen xornimo lagu ciilbixiyo ciziyo sharaf lagu helaa oo cududan lagu meel maraa aad baan u salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo walaalkii wariye koronto waa gabay dhaxalgala aniga hadda wad dhageysanay waxa daa warka jibi laakiin dib u sii dhageysan doonaa ereyada qaar ma fahmin laakiin qaarkood waa la haystaa waad fahmi doontaa waxa loo soo jilcino ereyada oo kan maadaama aan ugu talagalay bulshada Soomaaliyeed iyo kicin bulsho waa qasab inaad sarbeebo marar badan adeegsato hadda tusaale ahaan geedka dhafaruurta leedahay kan idin sheegay waxaan ka sheekeynayay dadka waxaan ka soo bilaabay 77 iyo dhafaruut ma noo sheegino laakiin la hadda fahmin maqsooy geed weeyaan mira bixiya sida hoobta kale hoobta ma fahantay way waa mataanaba way isu dhadhawiyeen macnaha waxa weeye marka macaan weeye waa wali ma cunay markaan hadda aan leeyahay cudadii 77 ahayd hanfiga ceeryaamihi iyo ciriida kulaliyo kolkay caatadu badneed oo gumaysiga lagu jiray kolkay baahidu cusleed cayrka iyo mayga isxiray cayrku waa roobkii waa duulaanka ay Soomaalidu gobonimadeedu ku raadinaysay cayrka iyo mayga isxiray samada guudkeeda camiray cargaagtamay unkaday barwaaqiya caana iyo ciiduhu roob weyn fisheen suuq iyo cadad buu noqdo ma soo rogin daadad culus wuu guul dareystay macnaha hawlgalkaas weeye صح kan hadda marka lagu qaadayo gudaha Soomaaliya lagaga sifaynayo ururada dhibaatooyinka ku haya yani isagana u soo laabtay waxaan idhi waxay cadibnaato cirka ku shareerantaba hadday saadaal cuntami barwaaqiya nabad camiran ciziyo sharaf muuqata Soomaalidu dhammaan u baahan xataa Soomaali galbeed baa u baahan kacdoonkaas oo kale oo ay gobonimo ku raadsato ama qoriha aad maqalna aade hadday saadaal cuntami barwaaqiya nabad camiran ciziyo sharaf muuqata cirsanka yeerkiina xalay cirsanka yeer waxa la yiraahdaa shimbir barwaaqada sheega cirsanka yeerkiina xalay kolkuu codka dheer ku ciyey saadaashii uu cabiray caaniyo roob bay ahayd cakirantii baa la jaray caqabad baa laga dhex baxay macnaha rajada dambe weeyay waa dhageysan doonaa aad iyo aad runtii halkan waxa soo fariisanay inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno lana qaybsano murugada tacsiida tiiraayada leh ee ku timid taliye ciidanka booliska Soomaaliyeed Faarax gobolka Banaadir runtii wuxuu ahaa geesi haliyay ah ka gabanin cadawga al-shabaab runtii cabsi iyo baqdin xoogan ay ka qabeen ay muxuu ahaa kalidi waayeen deegaanadii ay haysteen haddana kacdoon shacab oo dhan ayaa dhaqaaqay la dhaqaaqiyo insha Allah hore baa loo soconayaa dalkoo dhan hore ayaa loogu soconayaa waxaan gaari doonaa xilli aan falooqi ka soo diyaarino insha Allah dalkii Soomaaliyeed deegaan walba muxuu ahaa laguna tartami doono horumar iyo muxuu ahaa wanaag fara badan insha Allah waa saadaasha dambe inoo u saadaalinayo ummadda Soomaaliyeed gabayo fara badan oo garaadka kobcin doono kala socda garashada sareysa channelkan Abwaan Bashiir ayaa runtii qalinka u qaadan doona gabayo fara badan oo ugu talagalay bulshada Soomaaliyeed tan iyo kulantideeni dambe barnaamijka xiga waa Abwaan Bashiir Cabdi Qaadir Koronto idin leh sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.